السلام عليكم دمانتين أصحابتي qaaliga kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan idinku tusi doono sida aynu hore ugu balanay qaabab kala duwan ayaa jira oo geerka loo bedelo intooda badan waa isku mid laakiin waxay baabuurta ku kala duwan yihiin kaliya qaabka rugferka ama reverska dib u bixitaanka qaabka loo sameeyo ayay inta badan ku kala duwan yihiin baabuurtu laakiin nambarada kale waa iskaga mid marka muuqaalkan waa gaari kale waa gaari Opel ah marka waxaan idin tusin doonaa qaabka loo bedelo gaar ahaan waxaan waliba si gaar ah u eegi doonaa qaabka loo bedelo dib u bixida ama rugferka waxa loo yaqaano marka ugu horeysa waxa waad u jeedaan geerka laga bedelayo wakaas marka gaarigana sidoo kale waa gaari 5 number leh laakiin qaybta R ama dib u bixidu oo halka kaga taalo uma ka duwan marka 5ta numberka koowaad halku inoo ahaan jiray ayaa waxa la geeyay R ama dib u bixidii kadib nambarada kale saasay 1 3 5 2 iyo 4 hoosta asaasay markaa ku kala duwan yihiin marka halkii hore baabuurtii hore aynu soo aragnay dib u bixid waxa kaga taala meel kale laakiin gaarigan saaidin muuqata halkaas ayaa laga bedelayaa marka dib u bixid la sameeyo buttonka yar idin muuqdaan farta idinku tusinayo halkaas ayaad kor soo jiidaysaa kadib hore qaabkii wanka aynu u gelin jirnay ama baabuurtii labadii gaariye hore aynu soo aragnay ayaad sameynaysaa halkaas inoo muuqata bartaas ayaad kor soo jiidaysaa kadib markaad kor soo jiido waxa ku fududaanaysa in aad hore u riixdo oo reverse geliso marka halka aad arkasaan waa reverse ama rugfert dib u bixidii halkii wanku inoo ahaa baabuurtii hore ay ku kala duwan yihiin 1 iyo 2 3 iyo 4 5 kiina waa kan dhinacan noogu yaala marka baabuurtu waxay inta badan ku kala duwan yihiin idin soo sheegay qaybta dib u bixida marka kan wuxuu kaga yaalaa halkan oo kale R gaarigan marka waa gaari Opel baabuurta Mercedes-ka iyagana sidoo kale saan ayaa la isticmaalaa iyo baabuur kale oo la mid ah waxyaabaha noocan oo kale macalinka iskuulka ama macalinka gaariga ku baraya kuma barayo waayo waxa uu kaliya ku baraya qaabka loo bedelo gaariga lagu barayo oo kaliya marka hadhow hadii aad gaari kale iibsato oo kii aad ku baratay ka duwan ama aad qof saaxiibkaaga ka kaxaysatay ama aad kireysatay waxay kugu noqonaysaa kulay wax cusub marka muuqaalkan wuxuu ka caawin doonaa inaad baabuur kasta oo kamid ah baabuurta aynu naqaano qaabka loo bedelo ama geerka dib u bixida loo sameeyo inaad si barato saas ayaad reverse u gelinaysaa meeshaas aad kor soo jiidaysaa kadib hore ayaad u riixaysaa wankana marka meesha ma qabanaysid laakiin saas aad sameeysaa 2guna waa sidii hore 3gu waa sidii hore idin soo tusay 4kuna waa sidan 5ka laftiisa hore inuu soo aragnay marka 1 ilaa 5 waa iskaga mid gaarigan laakiin kaliya waxay ku kala duwan yihiin qaabka loo bedelayo geerka ama dib u bixida markaas intaas uma mataqaanay muuqaalkan kaga hadlayay waxa kale oo idin tusi doona hadda muuqaal kale oo ku saabsan isaguna qaabka loo bedelo geerka waa gaari nooc kale ah ama shirkad kale ah laakiin waxay iskaga mid yihiin gaarigan qaabka loo bedelo marka waa tusaale aan ku siinayo inaad ku ogaataan inay baabuurtu ku kala duwan yihiin qaabka dib u bixida marka muuqaalkana ila daawada gaarigan inoo muuqdo waa gaari 6 number leh kaliya waxay ku kala duwan yihiin tirada nambarada laakiin xagga rugferka ama reverska dib u bixida waa iskaga mid oo halka inoo muuqata R waa dib u bixidii sidii kii hore aynu yeelnay oo kale baad kana u sameyn kartaa marka dib u baxso kaliya waxay ku kala duwan yihiin inta number ay leeyihiin gaarigan 6 number ayuu leeyahay marka dib inaad u baxda rabto halkan inoo muuqata ayaad qabanaysaa muuqaalkii hore aynu tusay ama gaarigii hadda aynu aragnay ayuu la mid yahay meeshaas aad kor soo qabanaysaa kadib xaqii 1ka loo dhaqaajin jiray ayaad u jeedaysaa marka saas 1 ayaa inoogu jira kaliya waxay ku kala duwan yihiin numberka uu leeyahay gaarigani laakiin qaabka loo bedelayo rugferka ama qaabka dib u bixida loo bedelayo waa iskaga mid intaas waxay noogu dhan muuqaalkeeni koobnaa ee maanta hadii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe muuqaalka hadii aad wax ka faa'iideyna fadlan like lana wadaag asxaabtaada